daawade ma isweydiisay sababta lacagaha, ganacsiga, iyo xogaha qarsoon ay mustaqbalka ugu wareegi doonaan blockchain? Maxay tahay sababta qaar ka mid ah dawladaha adduunka ay u bilaabeen inay u arkaan teknoolojiyaddan inay beddeli karto nidaamka bangiyada, sharciga, iyo xitaa doorashooyinka? Soo dhawaada saaxiibayaal, aniga waxaan ahay Abshir Casaawe, halkanna waa Casaawe Technology. Waxaan idinla wadaagi doonaa maanta mowduuc ku saabsan hal-abuurka ugu weyn ee qarnigan ee blockchain. Waa teknoolojiyad aysan cidna si buuxda u xakamayn karin, isla markaana si xor ah looga wada shaqaysan karo. Waa nidaam xitaa haddii hal safar uu jabo aan gebi ahaan xogta burburi doonin. Waxaan lagu tilmaamaa buug xisaabeed caalami ah oo aan cidna masiixi karin. Marka la yiraahdo blockchain, waxaa loola jeedaa silsilad block ah. Block kastana wuxuu xambaarsan yahay xog gaar ah, sida lacag lagu diray, wuxuuna ku xirmaa blockii ka horeeyay. Sidaas darteed, haddii qof uu isku dayo inuu been geliyo hal block, dhammaan silsiladaha ayaa isdiidi doona. Tani waxay blockchain ka dhigaysaa mid adag oo aan la xadi karin iyo mid aan been la gelin karin. Sidee ayuu u shaqeeyaa blockchain-ka? Bal aan si fudud u fahanno. Markii aad lacag dirto adigoo adeegsanaya blockchain, tusaale ahaan Bitcoin, lacagtaasi ma marto bangi ama qof dhexe. Halkii ay mari lahayd nidaam keliya, waxay si toos ah ugu dhacdaa shabakad dad badan ay ku wada xiran yihiin, waxayna maraysaa tallaabooyinkan. Tallaabada koowaad, macluumaadka macaamilka transaction-ka ayaa lagu xareeyaa block cusub. Tallaabada labaad, blockgaas cusub waxaa loo diraa shabakaddan si loo xaqiijiyo inuu yahay mid sax ah. Tallaabada saddexaad, dhammaan seerfaradu markay isku raacaan inay xogtani tahay mid sax ah, blockga cusub ayaa lagu daraa block hore, waana lagu xiraa. Ugu dambayn, macluumaadkaasi waxa uu noqdaa mid aan la beddeli karin, cid walbana way arki kartaa. Waa maxay sifooyinka ka dhigaya blockchain-ka inuu noqdo hal-abuurkii ugu weynaa kadib imaatinkii internetka? Waxaa jira teknoolojiyado badan oo wax lagu kaydiyo, laakiin inta badan waxaa gacanta ku haya hay'ado gaar ah. Laakiin blockchain ma jirto cid gacanta ku haysa ama xukunta. Sidoo kale, blockchain-ka waxa uu leeyahay ammaan aad u sarreeya. Xog kasta waxay leedahay hash code. Tani waa lambar sir ah oo muujinaysa sax ahaanshaha blockga. Haddii hal xaraf laga beddelo xogtaas, hashka ayaa isbeddelaya, markaasna shabakadda inteeda kale waxay fahmaysaa in la been abuuray. Sidoo kale, blockchain-ka xogta lagu kaydiyo waxay u furan tahay qof walba oo shabakadda ku xiran. Waa nidaam furan oo aan la qarin karin. Sidoo kale, blockchain-ka marka block lagu daro, ma suurtagelaysa in la tirtiro xogtaasi ama wax laga beddelo. Tani waxay keenaysaa in la helo taariikh sax ah oo aan la taaban karin. Blockchain-ka waxa uu leeyahay noocyo kala duwan oo blockchain ah, waxaana ka mid ah public blockchain, private blockchain, iyo consortium blockchain. Public blockchain waa nooc u furan qof walba, wuxuuna arki karaa dhammaan blockyada. Private blockchain waxaa isticmaala shirkado ama ururo gaar ah. Keliya dad gaar ah ayaa geli kara xogtaas, mana ahan mid furan oo la wada arki karo. Consortium blockchain waa nooc u dhexeeya public iyo private, waxaana maamula kooxo shirkadaha oo isku tegay si ay u wadaagaan xog gaar ah, isla markaana ay u ilaaliyaan sirta. Blockchain-ka waxa uu awoodaa inuu caawiyo teknoolojiyadaha kale. Artificial intelligence-ga waxa uu u baahan yahay xog sax ah oo ammaan ah. Blockchain waxa uu siin karaa xog la isku halayn karo, taasoo AI ka dhigaysa mid sax ah. Qalabyada isku xira, kaamiradaha iyo baabuurta smartiga ah waxay u baahan yihiin kaydinta xog hufan. Blockchain waxa uu siin karaa xogtaasi. Dunida dijitaalka ah ee metaverse waxay u baahan tahay in lagu kaydiyo hantida dijitaalka ah sida NFT, avatariska iyo lacagaha gudaha. Waxaasoo dhanna waxaa bixin kara blockchain.